dallada dhalinyarada badbaado ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay ku biireen xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana munaasabad lagu soo dhaweynayay dhalinyaradan laguna qabtay hotel Cadam ee magaalada Ceerigaabo ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer degmada Ceerigaabo heer gobolka Sanaag iyo heer golo dhexe ee xisbiga wadani iyo taageerayaal tiro badan ayaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Jaamac Muuse ugu horreyn halkaas wuxuu ka sheegay in ujeedada munaasabadani tahay mid lagu soo dhaweynayo dalladan dhalinyarada badbaado ee maanta ku soo biiray xisbiga wadani xubno ka tirsan dalladan dhalinyarada badbaado ee ku soo biirtay xisbiga wadani oo iyaguna halkaas ka hadlaya waxa hadalladooda kamid ahaa waxaan halkan ka caddaynaya anigoo ah gudoomiyaha badbaado ee gobolka Sanaag inaanu heel iyo hooba la garab taaganahay xisbiga waanuna ku soo biirnay way caddahay taasi wax mid la iska baryayo ma aha waxaanu aayaha ka tashanaa mustaqbalkayga waxaanu codka ugu ridaynaa cidii danteedu ku jirto oo aanu aragnay maanta gudoomiyaha sharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro farxad weyn bay tahay oo abdaaba anagu garanay inaan ku soo biirno xisbigan ee dantayadu ay tahay muhiimadayadu inaan hadaf iyo mustaqbal aanu leenahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay xisbiga wadani waa rajada kaliya ee dhalinyaradu ay leedahay aad iyo aad baan anaguna ugu faraxsanahay inaan xisbiga wadani aan ku soo biirno cududeedii maalkayguba waa xisbiga wadani waxay iyaguna halkaas ka hadlay xubno u badnaa haween kana tirsan golaha dhexe ee xisbiga wadani qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee goobtaasi ku sugnaa iyo waliba mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee deegaanada Sanaag bari qaarkood kuwaas oo dhammaan halkaas uga mahad celiyay dhalinyaradan maanta cududooda kula soo biiray xisbiga wadani maanta kulmiye waxba kama banaana inaga maanta xisbiga wadani boosaskooda way banaan yihiin wixii dal la iibsada dawladdu lahayd na waa laga daba tagi doonaa waa ku talagalaysaan codkan hala siiyo maanta fartaas lagu aarsanaya dallada badbaado ee dhalinyarada aqoon-yahanka reer Ceerigaabo ama reer Sanaag aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarada badbaado waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada waa xisbigiini cidin kama laha waxaan leeyahay dhalinyarada reer Sanaag meel kasta ay joogaan sida dhalinyarada badbaado ku soo biiro xisbiga wadani waa dantiina waxay ku jirtaa xisbiga wadani dhalinyarada soo wareegtay ee badbaado soo dhawaada hambalyo waxa weeyaan sidii la sheegay anigu shalay baan halkan la igu soo dhaweynayay maantana badbaadaan soo dhaweynayaa waxa weeyaan xisbiga wadani waa xisbi loo soo kala horeeyay laakiin aan la kala lahayn annagu waxaanu nahay bariga Sanaag gudoomiyaha ceelbu waxaanu leenahay waxaanu ku dooranay labada xisbinimo kala xigin waxaanu ku dooranay midna mujaahid buu noo sheegtay annagu nagu jahaaday midna annaga wuxuu yiri waa u siman ugu dambeyntiina halkaasi waxa ka hadlay soona gabagabeeyay munaasabadan gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday dhammaan dhalinyarada badbaado ee ku soo biirtay xisbiga waa soo dhaweynayna waxaan leenahay dhalinyaro ku soo dhawaada kaliya laab ku soo dhawaada xisbigii mustaqbalka Somaliland xisbiga rajada Somaliland ku soo dhawaada waxa la magacaabay degmada la yiraahdo Bohol oo loo magacaabay degmo waxaan leeyahay degmada waa soo dhaweynaynaa laakiin degmada Muuse Biximo magacaabine Siilaanyo oo Ceerigaabo sharaf ka mudan iyo dalkaba ayaa magacaabay waxba yaanay kulmiye sooranin waxba ka helaysaan halka waxba idin kuma jiraan waa ku hongoobaysaan Cabdullaahi Xasan Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo